isku soo noqod waxaana wanaagsan. Asalaamu calaykum dhammaantiin. Waxaan ka sii anbaqaadaynaa xalaqadeennii labaad ee buuggeenna jacayl aan dhammaad lahayn doorashada wanaagsan. Qof kasta waxa uu maanka ku hayaa oo ay riyadiisu tahay siduu u heli lahaa qof wanaagsan waa ay nolosha isla qaybsadaan, kaasi oo jecelaysna uu jecel yahay, daacadna ay isu yihiin, iyaga oo raba inay isla qaybsadaan quruxda nolosha, isla markaasna isku weheliyaan farxadda iyo murugada nolosha, isuna noqdaan mataano nolosha isku dhammaystira, isna garab qabtaan si ay u wada gaadhaan guusha adduunyo iyo mid aakhiro. Laakiin waxaa laga yaabaa inaad taqaanid wiil iyo gabar oo isjeclaa kadiina isguursaday. waxaa dhici karta inaad adiga joogtay xafladda arooskooda, markaasi oo dadka oo dhan ay wada faraxsanaayeen, qof kastana uu isdhahayay lamaanahan isdoortay weligood waa isu waari doonaan. hase ahaatee dhowr bilood kadibna aad maqashay lamaanihii waa isu fureen. dabcan waa arrin naxdin leh, aan ku koobnayn iyaga oo keliya. baaritaano badan oo arrinta lagu sameeyey waxay tilmaamayaan in tirada furiinka kor u kacay marka loo eego sannadihii hore. runtii markaas waxaas weydiinaysaa, maxaa arrintaasi sababay? ma qof akhyaanola ahaa? ma jacaylkoodii guurka ayaan dhab ahayn? waxaan isleeyahay taasi waxaa sabab u ah wacyiga bulshada ay ka haystaan jacaylka iyo guurka aanay si midka laga ahayn. waxaan soo malaynayaa oo keliya oon ku jeclahay, aad ayaan kuugu faraxsanahay, waxaa tahay qalbigayga, la'aantaa waa abaar iyo ereyda maxaan ee aan daacadda laga ahayn in lagu dhiso guurka. laakiin xaqiiqadu waxay tahay jacaylka keliya ma dhisi karo nolosha lamaane isu faraxsan oo wada jooga, sidoo kale guurkoodana ma noqon karo mid guulaysta jacaylka la'aantii. guur lagu xasilo oo lagu nagaado ma bilowdo marka la isguursado, balse guurka ka hor ayaa inaad samayso doorasho wanaagsan oo ku fahmaysid oo fahansiinaysa sababta dhabta ah ee aad qofka noloshaada ula wadaagaysid, ama ku tusaysa inaad qaadaysid ammaano, dushaadana ay fuurayso mas-uuliyad xilgudasho kaa rabta. ilaahay sarreeya subxaana wa tacaala marka uu tilmaamayay guurka waxa uu ku cabbiray inuu yahay dhar, hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna. sida caadiga ah dadka oo dhan ay og yihiin waxay tahay in qofku uu xirto dhar la eg balaciisa, dherarkiisa, midabkiisa, dhar uusan ku qanacsanayn yeenuu yahay dooqiisa. laakiin haddii uu gashado waxaa imanaysa inuu isdhibsado ama gudaha xiriiri ka dareemo. sidaas awgeed waxaa muhiim ah in qofka uu doorto qofka isaga munaasabka ku ah xaaladihiisa gaarka ah. haddii kale waxaa imanaysa inay noloshiis ku dhacdo dhibaato culus oo uusan filayn. mar kasta oo la hagaajiyo doorashada waa marka uu xiriirka labada qof sii adkaado. tusaale, nin baa ilmihiisa ku yidhi, waan idin wanaajiyey markii aad yaryaraydeen iyo inta aydaan dhalan ka horba. waxay ku dhaheen, sidee baad noo wanaajisay inta aanaan dhalanin ka hor? wuxuu ku dhahay, waxaan idiin dooray hooyo tan ugu wanaagsan. taasi waxaan ka fahmaynaa in doorashada wanaagsan ay labada qof oo keliya aysan saamayn, balse xitaa boqortooyada labada qof ka kooban haddii uu alle ugu deeqo carruur inay saamayn wanaagsan ku yeelanayso. nebiga sallallahu calayhi wasallam markii la weydiiyey waxa ugu khayrka badan ee uu qofku hantiyo, waxa uu yidhi, midkiin ha yeesho qalbi alle ku mahadin og, carab alla xusid badan, iyo gabar mu'minad ah oo suuban, aakhiradiisana ku kalmaysa. doorashada wanaagsan waa bilowga deganaanshaha. waxaynu ka sii anbaqaadi doonaa xalaqadeena saddexaad yaan guddoonsiiyaa rabigayga. wasalaamu calaykum.